muqdisho ma aha sidii hore iminka waxaa ku soo badanaya dhismaha daaraha dheedheer ee ganacsiga sida hoteelada. In hantiilayaasha ay maalgashi sidan oo kale ay ka sameeyaan magaalada waxaa suurtagelinaya nabadda soo ifaysa iyo in dadka Soomaaliyeed ay ka daaleen colaadii muddada dheer soo taagneyd. Bare Cali Geedi oo ka mid ah dadka ku dhaqan magaalada Muqdisho iyo Axmed Maxamed Dhoore oo ka mid ah dadka ka yimid qurbaha waxay u arkaan dhismaha dabaqyada dhaadheer ee laga taagayo Muqdisho horumar ku soo kordhaya dalka isla markaana dhiirigelinaya in dalkan uu u baahan yahay in dadkiisa ay dhistaan. magaalada dabaqyada dhaadheer aad ugu soo kordha oo horumar ah horumarka hadda ka jiro dawladda Soomaaliya bariga jirta taa kama jiro dabaqyada dhaadheer dabaqyada dheer oo caalamku la tartamaya dabaqyada la dhisa aadaan u soo dhaweynayna ganacsada sidaas dabaqyada u dhisaydo magaalada u nadiifinayso u qurux badan dhiso maalin kasta dhisaydo. I'm from London waxaan ka imid magaalada London waxaan joogay dhowr maalmood magaalada Muqdisho magaalada Muqdisho waxay ugu dambeysay hal sano ka hor wax badan iska bedelay marka magaalada Muqdisho ma sha Allah waagii hore sida ay ahayd iyo si ka fiican ayay ku socotaa dadweynaha Soomaaliyeed ee qurba joogta waxaan u sheegaa magaaladoodii waa nabad marka waxaan idilaahay welcome to the Muqdisho. Haddaba wixii ka dambeeyay burburkii dalka ganacsatada waxay ahaayeen kuwa hantidooda geliya wadamada dariska iyo meelo ka fofog dalka iyadoo taasi ay ugu wacnayd ammaan darrada iyo colaadda dalka ka jirtay balse haatan waxaa mar walba taasi u dheer dareen ku joog laakiin hadda arrintaasi waa ay ka duwan tahay oo ganacsatada waxa ay garawsadeen in xaaladda dalka ay sidii hore ka soo hagaagayso ayna mudan tahay in iminka ay maalgashadaan dalkooda gaar ahaan caasimadda Muqdisho. Safiya Ismaan Cabdulle, Shabeelle TV.